Dowladda Sacuudiga oo sharci adag ka soo saartay dadka faduuliya haweenka xijaab la'aanta ah iyadoo sidoo kale cabaayadda dumarku xirtaan ku tilmaamtay dhaqan xumo boqortooyada Sacuudiga lagu beeray. Walaal like saar aragtidaada ka dhiibo oo share garee si uu muuqaalkan u gaaro saaxiibo badan oo nagu helno saaxiibo wanaagsan. Mahadsanid. Tan iyo markii dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya ay haweenka dalkeeda u ogolaatay sharciyo aan loo ogolayn oo ay ka mid ahaayeen in haweenku aanay safri karin bilaa muxram, in haweenku aanay wadi karin gaadiidka noocyadiisa kala duwan, in haweenku meelaha dalxiiska, damaashaadka iyo goobaha lagu caweeyo aanay kaligood tegi karin. Ayaa tan iyo markii sharciyadaas iyo kuwo kale dowladdu haweenka waddankaas u ogolaatay ayaa waxaa inta badan wadooyinka, goobaha dalxiiska, damaashaadka, caalamiitada iyo goobaha lagu caweeyo waxaa lagu arkaa haween aanay xijaab iyo cabaayadda haweenku xirtaan aan wadan oo sida dumarka wadamada reer galbeedka u labisan. balse dumarka qaab labiska dalalka aan soo xusnay leh ayaa waxa ay si joogto ah fowdo, xumeyn iyo caqabado waxa ay kala kulmaan dad u badan rag iyo qaab labiska dumarkaasi dad aan jeclaysan. Saldhigyada booliiska Sacuudiga ayaa waxaa gaaray kiisas iyo wicitaano badan oo arrimahaasi la xiriira, taas oo caqabad weyn booliisku kala kulmaan wax ka qabashadeeda sida ay sheegeen. Madaxda dowladda iyo mas'uuliyiinta dowladda oo arrinkaasi ka fadhiistay ayaa waxa ay ka soo saareen sharci arrimahaasi lagu xakameynayo, kaas oo loogu digayo dadka arrimahaasi ku kaca. Mas'uul u hadlay dowladda ayaa sheegay in dumarku ay xor yihiin, waxa ay rabaanna ay samayn karaan, cid wax u geysan kartana aysan jirin. Haddii ay xijaab qaadanayaan iyo haddii aysan qaadanaynna ay dooqooda ku xiran tahay. Sidoo kale waxa uu sheegay in cabaayadda dumarku qaataan ay tahay wax meel kale laga soo guuriyay, haddii ay rabaanna aysan dumarku qaadan karin. Waxaana dowladdu sheegtay in xabsi dheer ay mutaysan doonaan dadka arrimahaasi ku kaca oo haweenku ka soo dacwoodaan booliiskuna gacanta ku dhigo. Waxaana war-saxaafadeed lagu sheegay in cabaayadda, marada madow, niqaabka ama indho shareerka aysan dumarka waajib ku ahayn, laguna qasbi karin, cadaadisna aan lagu saari karin. Dhinaca kale, dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaa xurriyad shakhsi ah ugu yeeray in gabadhu madaxa u wax saarato ama iska dayso, taas oo iyadu dooq u leedahay sida uu sheegay, laguna qasbi karin.